إيران ayaa uga digtay Mareykanku inay ku soo gardaroodaan kadib markii madaxweyne Trump amray kadibna uu joojiyay weerar dhinaca cirka ah oo ahayd in lagu qaado Iiraan markii loo sheegay inay halkaas ku dhiman karaan 150 qof wasaaradda arrimaha dibadda ee Tehran ayaa sheegtay in tallaabo kasta oo daandaansi ah lagana fikirin inay heli doonto weeraan jawaabteeda iyo cawaaqib aan la saadaalin kareynin Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa inoo haya ma dagaal bay u xusul duubayaan Mareykanka iyo Iiraan mise dib ay u xisaabtameen madaxweyne Trump ayaa xaqiijiyay inuu amray xalay in la duqeeyo Iiraan laakiin go'aankiisa uu bedelay daqiiqadii ugu dambaysay Mareykanka ayaa la filayay inay ka jawaabaan Iiraan oo ku soo riday meel gacanka ka tirsan drone Mareykanka oo kuwa sahanka ah kaasi oo laga sii daayay telefishinka Iiraan Iiraan waxa ay sheegtay in ay soo qaaday burburkii droonka oo ay sheegeen in uu soo galay biyahooda wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Javad Zarif ayaa xalay Twitterkiisa soo dhigay muuqaal khadka droonku uu maray iyo goobtii uu ku burburay ee xeebaha Iiraan laakiin Mareykanka ayaa ku adkaysanaya inuu ku jiray hawada caalamiga ah iyaguna waxay soo saareen qariirad kale waxaan qabaa dareen ah in qof uu khalad sameeyay waxa ay ahayd inaanay samayn waxaan u malaynayaa inay khaldameen kama hadlayo in dalku khalad sameeyay waxaan isleeyahay